kusoo dhawaada maadadeennii farqurxinta laatiinka noocii koowaad italic kow casharkii saddexaad casharkeena maantay saddexaad wuxuu ka bilaaban doonaa xarafka o ilaa iyo xarafka t ka o markaa qorida labada leen oo dhexe ku qor xarafka o marka la ku celiyo waa koobinta labada leen oo dhexe ku qor xarafka p hoos daada ku laabo ucda dhexe ku laab xarafka p marka la ku celiyo hoos daada ku celi xarafka q markaad qorisid xarafkii c ama a samey kadibna usha halka ka soo marsi xariiqana meesha kaga aadi xarafka q marka la ku celiyo c samey kadibna usha ku soo hay xariiqana halka ka marsi xarafka r usha soo waxay inta yarna u samey marka la ku celiyo xarafka r xarafka s labada laan oo dhexe ku qor kor ka soo bilow marka aan ku celiyo xarafka s xarafka t kor ka soo bilow leenka gaduudka kore leenka saddexaad keen xariiqana halka ka marsi marka aan ku celiyo marka aan ku qorayo buugga loogu talagalay farqurxinta laatiinka xarafka o marka qorisid labada leen oo dhexe ayaa ku qoraysaa wuxuu ka mid yahay xarfiyo ubucleyda xarafka p marka qorisid halka ka soo bilow ku laabo dhaxdana ubucda ku laab xarfi lugleyda ayuu ka mid yahay xarafka q xarafkii c ama a samey kadibna usha kor kaga soo xir xariiqana halka ka marsi xarafka r ul kor ka soo bilow labada leen oo dhexe kadibna ku laabo xarafka s labada leen oo dhexe ku qor xarafka t marka qorisid kor ka soo bilow xarfi madaxleyda ayuu ka mid yahay xariiqana halka ka marsi aan ku celiyo mar kale o labada leen oo dhexe ku qor xarafka p hoos daada usha kadibna ku laabo dhaxdana ubucda ku laab hoos ay u soo bixinaysaa xarafka q marka qorisid xarafkii c ama a samey kadibna usha kor kaga soo xir xariiqna halka ka marsi xarafka r labada leen dhexe ushaas madaxa yar u samey xarafka s dhaxda ku qor asigana xarafka t kor ka soo bilow xariiqna halka ka marsi inta ku soo qor ugu yaraan hal bog ee buuggaaga farqurxinta laatiinka waxaa idin soo gudbinaya qore Maxamed Cabdalla Waasuge wixii faahfaahin ah waxaad igala soo xiriiri karaysaan nambarka aan qorayo waa inoo cashirka xiga iyo qaybta ka dhiman xarfaha yaryarka ee BC-da